xuska 21 guuradii ka soo wareegtay aasaaskii ciidanka booliska qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa saaka si weyn looga xusay magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil. Munaasabad ballaaran oo loo qabtay xuskani ayaa wax ka soo qayb galay mas'uuliyiinta gobolka Saaxil iyo kuwa degmada Berbera, mas'uuliyiinta hay'adaha laamaha dawladda ee gobolka Saaxil iyo saraakiisha sarsare ee ciidamada bilayska laamihiisa kala duwan. waxaana ugu horeyntii ciidamada bilayska ee gobolka Saaxil ay munaasabadaasi ku soo bandhigeen gaada ciyaar ay ugu dabaal degayaan sanad guuradii 21aad ee ka soo wareegtay aasaaskii ciidankooda. taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Saaxil iyo qaar ka mid ah saraakiisha sarsare ee ciidanka booliska laamihiisa kala duwan oo iyagu si kooban uga waramay maalintan iyo ahmiyadda ay u leedahay ciidanka. 21 guuradii ciidanka aasaaska booliska guud ahaan ciidanka boolisku ka horna uu jiray, laakiin se maalintan la bilaabay ee 3 November 1993 ciidanka boolisku wuxuu isu bedelay ciidan qaran ama National Police Force buu noqday, ciidankii qaranka booliska ee Soomaaliland ayuu noqday. gudoomiyaha gobolka Saaxil Fahmi Cabdi Bidaar iyo maayar ku-xigeenka degmada Berbera Baasha Cabdilaahi Yacquub oo iyaguna munaasabadaasi soo afmeeray ayaa dhammaanba ciidanka booliska Soomaaliland ugu duceeyeen alla sanadkan sanadkiisa caafimaad iyo horumar ku gaarsiiyo. gaar ahaan ciidanka booliska gobolka Saaxil waxay ku amaaneen sida ay uga shaqeeyaan nabadgelyada guud ahaan gobolka Saaxil. caafimaad Allah inagu wada gaarsiiyo, kuwii ku guuleysta hawlaha isku jirtaan Allah ee uu Ilaahay u fududeeyana Allah idinka dhigo. maanta waa 3 November waa maalintii sanad guuradii 21aad ee ciidanka booliska Soomaaliland. waxaan halkan hambalyo iyo salaam uga dirayaa saraakiisha booliska, alfaaleyda, saraakiil xigeenada iyo xaasaskooda. waxaan leeyahay hambalyo. Khalid Xasan Nuur, telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV, magaalada Berbera.